så vi at integrering egentlig et mer komplekst tema än det vi hade tänkt. Det är inte Bismillahirrahmanirrahim. موضوع sanadkan wuxuu ku saabsan yahay olika sociala och socioekonomiska förhåll. Macnaheedu waxa waaye kala duwanaashada cadaalad qaybsiga dhaqaalaha waxbarashada tacliinta yani qofka sidoo positionka ama booska u baahnaa oo bulshada ugu qaada lahay maxaa keenaysa inay dad qaar macnaha fursadahooda ka fiican tahay dadka kale maxay fursadaha leeyihiin waxa arabna inaan ka hadalno asbaabaha oo keenayo kala duwanaashada fursadaha iyo sidii loogu xoojin lahay dadka fursadooda daciif u tahay in macnaha noloshooda wanaajiyaan waxyaabaha oo ay u baahan yihiin in la awoodsiyo sida positionkaas u gaaraan sababta mawduucana u dooranay wuxuu ahaa konferensihi ugu horeysay 2021 waxa kaga hadalnay dhibaatooyinka ka haysta Soomaalida isdhaxgalka bulshada guud ahaan isdhaxgalka bulshada dhibaatooyinka ka haysta macnaha sababta dadka oo dhan dhibaatooyin ma ka haysta arintaas laakiin dadka dhibaatooyinka haysto dhibaatooyinkaas waxa loo qaybi karaa laba nooc oo qofka ka soo macnaha gudihiisa ku saabsan oo caafimaad ama wax la mid ah ku xiran iyo nooc ku xiran waxyaabaha bulshada gudaheeda ka jiro sanadka hore waxa ka hadalnay waxyaabaha oo ku saabsan caafimaadka sanadkan waxa ka hadlaynaa waxyaabaha ku xiran dhibaatooyinka qofka kala kulmaya bulshada oo keenayso in oo doorkiisa oo ka qaadanin awoodi oo waxa u lahaa oo u baahan yahay in laga xoojiyo iyo fursadihii oo u baahnaa in la awoodsiyo inuu qaato maalmood soo socdo maalinta koowaad waxa ka hadlaynaa cilmi baaris badan oo ku saabsan arintaas iyo waxyaabaha laga qaadan karo cilmi baaristaas kadibna duhurkii kadibna waxa ka hadlaynaa khibradaha u leeyihiin dadka ka soo qayb galayaasha sababtoo dad badan oo khibrad iyo maxay ahayd iyo aqoon u leh ka soo qayb galaya maanta khibradaas iyo aqoontaas ka faa'iideysanayna sida isku weydaarsano aqoontaas oo organization walba ama qof walba magaaladu ku imaaday iyo maxay oo kaga faa'iideeyo iyo shaqadu qabanayna kaga faa'iideysto aqoontaas dheeraadka oo soo kordhay biri waxa haduu ilaahay yiraahdo mawduuca maxay ahayd asaasiga uu yahay xal helid oo ku imaanayso macnaha gruubo yaryar oo isku imaanayo oo ka hadlayo su'aalo gaar ah oo wacyiman gruub walbo inuu xal oo ka keeno arintaas Veldig kjekt å være her. Jeg kan ett ord på somali. Tusmo. Jeg vet hva det betyr også. For det betyr å vise vei. Og kjære venner, det nettopp det dere gjør. Dere veivisere. Og i dag så skal jeg snakke om ulikhet. Det veldig viktige tema som blir tatt opp på denne konferansen. Det å hindre ulikhet, motvirke forskjeller, det et særdeles viktig tema. Og jeg tror jo at arbeid, det å inkludere flere i arbeidsmarkedet, det en vei ut av ulikhet. Det det aller viktigste verktøyet vi har i verktøykassen for å bekjempe fattigdom. Og arbeid det gir lønn på konto, så du kan forsørge deg selv, familien din, men det gir også mer enn det. Det gir muligheter til å møte i et fellesskap, det gir selvtillit, og det gir en mulighet for at vi kan integreres, både de som kommer hit, men også vi som født og oppvokst i Norge og har norsk bakgrunn, møter innvandrere. Og det fører jo til at vi får mer positive holdninger, og der har vi heldigvis gått fremover, og det viser også de siste undersøkelsene. De frivillige organisasjonene viktige av flere grunner, rett og slett fordi at både så gir de jo muligheten til deltakelse i samfunnslivet, men så har man også veldig viktig innsikt og også utsikt som vi som offisielle myndigheter nyter veldig godt av i den dialogen vi har med frivillige organisasjoner. Og så det noen mellomrom i samfunnet. Det ikke alt det offentlige kan gjøre og ta vare på, og der har de frivillige organisasjonene en veldig viktig rolle. Og sist, men ikke minst, så har jeg lyst til å nevne at den kunnskapsbyggingen, en sånn konferanse der ulike organisasjoner kan komme, møte, dele sine erfaringer, det veldig viktig, både for organisasjonene selv, men det også viktig for oss som myndigheter å ta del i den kunnskapen.